daawadayaal saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan kulanka sagootinka ee lagu sagootinayo kulanka lagu macsalaameeyo tababaraha kooxda kubadda cagta ee Rasan ninka lagu magacaabo Axmed Gidaamow macallinku waa uu soo gaaray si uu uga qaado 22 ciyaaryahan ee ciyaartan ciyaaraysa iyo sidoo kale 4 garsoor ee kulanka dhexdhexaadin doonta sidoo kale macallinku xigeenka kooxda oo waqti badan soo caawiyay waayihii guulaysta ee kooxdan uu la qaatay tababaraha kooxda Rasan macallinkii hore kooxda Heegan Axmed Gidaamow waxaa shabaq ilaalinaya golayaal lagu magacaabo Abshir Abdullaahi Maxamed golayii hore kooxda tabaarko difaaca bidixee kooxdan waa Anwar Marcelo halka difaacyada dhexe ay ku mataanaysan laacibka lagu magacaabo Maxamed Axmed Abukay iyo sidoo kale laacibka lagu magacaabo Emmanuel difaaca midig ee kooxda Rasan waa ciyaaryahanka lagu magacaabo Umar Roti wadnaha dhexe dhanka kooxda Rasan galabta waxaa ka ciyaaraya superstarkii hore kooxda Zahabi Daadir Salaad Cawaale Daadir Amma isaga ayaana baasi doona ciyaartan si kastaba tababaro waxa uu baaska qaybta koobaad siiyay kooxdiisa Rasan ee uu maamuli doona ciyaartiisa ugu dambaysa galabta waa uu dhoola cadeynaya waa uu riyaaqaya waxa soconaya maadaama galab qaali ah uu tahay galabtan garsoorku sariga ayuu ka dhawaajiyay waxa salaam baqaadaya munaasabada kulanka lagu sagootinayo tababare Axmed Gidaamow ka soo dhaxayo kooxaha Elman iyo sidoo kale Rasan جبريل يا سلام باص عجيبة قوب عجيبة يا سلام صغر بلايا لو قوي قويا قلطسو كحل الرزن يا سلام يا سلام يا سلام وحياتكم بس صغر بدل الله أبابولي وحياتكم بس صغر بدل الله نسي باسكي تحانها هاي قاري عيارتو ذا ويركي كحلكم بدا عكتي رزن سكستو حالك دقاقي قولايا وحاسكم بدا سلة تابسية شبغة garoonka injineeriso taasoo u dhaxaysa kooxaha Elman iyo sidoo kale Rasan waxay maraysaa gool yeebar goolkaasi waxaa dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Simba kaasoo ah libaaxa kooxda kubadda cagta ee Rasan waxa uu la dhaafay goolka waxa soo ku ciqaabay shabaqa wiilasha kooxda kubadda cagta Elman Cabduqaadir Siido Ali Seega Rushka waa uu baas Seega Hajo kubadii taxanaayada Elman ayaa soconaysa baas cajiiba Jamaal جول المن ويسو لابتي المن ويسو نولاتي جمال يا دليو جول عجيبة تاسوي هيدين كوب كان مناسبة دي انتيان وحكستوي كوبادو ترارح دو تحاني مسكح دا حاجو كوبادي ترارح هيدي كتمد انور سيد علي شاكون دا وحي تابة تلوك تميدي جمال كاسو هل تابة شاكون ميستري ويلو ميان مركن عيارتو دا كوحدو كوبادا عكتي المن جبريل حسن فريد مركله باص عجيبه اذن جيار ووغوي اذن يا ولكو بديستا حدي وباص وغتر قلطسو رازن قلبت رازن جولكي لباده قلبته waxa soo gool galgalay markala fiiriyo sida garoonka oo dhan ciyaartooyda ay u ciyaarayaan laacibka lagu magacaabo aadan markala ayuu dhulku ugu dhaqaaq golayo banaanka ayaa loo soo dhigay laacibka lagu magacaabo Simba isilabaada galabta isagoo wajahaya kooxda kubadda cagta ee jaalayaasha Jibriil Xasan Fariid ayaa baas bileele dhiga goob bileele aadan ayaa goob qurux badan ugu dhaqaaq golayaa ways waxay u tahay galab waaliya Simba ayaa loo soo dhigay bila Bashir Colaad isagoo birtu ku jira ayaa laga dhaliyay kaasoo kamid ah ciyaartoydii tartankii iskuulada qadar ku soo ciyaartay Shakunda بوصاليسا شاكوندا قوب غتر أيو كديبي منا كلا صديقي أوه جولاتسو الشابق أخابي عيريان كلو مقاب الشابق مهنا سياب منا كصديقي وحاي دافتي قعنت مدقي قولايا لو مقاب أبشر قولايا ريكو حدو تباركو رسولك سيريقا أيو كدواجي وحانا غير تكوب هذا عيار تلو كالمريا صاحبي يالداو دي لبا قول labada gool ee kooxda Rasan waxay ka heshay Simba qaybtii koobaad ee ciyaarta halka kooxda Elman Jamaal iyo sidoo kale ciyaaryahanka lagu magacaabo Shaafiq ay u kala dhaliyeen maadaama qalad waaliha uu sameeyay goolaayii lambarka koowaad ee kooxdan sidoo kale Shaafici Maxamed Xasan ayuu bedel ku keenay tababaraha lagu magacaabo Axmed Gidaamow waxaase ciyaaryahankan uu nasiib u yeeshay daqiiqadaha ugu dambeeya ee ciyaarta ya salaam ya gool si qurux badan ay kubaddaas u qaabeen waxaa ugu dambeyn kubaddaasi madfac ay gaartay
shabaqa kooxda kubadda cagta ee elman balaan milicsano kubaddii atamkeeda laga dhaliyey kooxda kubadda cagta ee elman kabtan cabaas ayaa dhaliyey gool walaac badan ku abuuray jamaahiirta kooxda kubadda cagta ee elman sarakac badanna ciyaarta ugu sameeyey dhinaca jabhadda kooxda raasan elman way ku soconaysaa goolasho oo way ku soconaysaa galabta raadsan way baashaalaysaa laki ayaa dhaliyey gool kale oo aan la aamini karin galabta waa galabtii kooxda raasan galabta waa galabtii tababare gidaamow galabta waa galabtii ay ka jajabneed kooxda jaallayaasha markaysan ahayn maalintaada markay tahay maalin musiibo ku ah galab jawiga uu kaa qaldan yahay waa galab noocaan oo kale ah waa galab lagugu jeestaanayo waase galab jilbaha lagaa garaacayo ciyaaryahanka lagu magacaabo lakiyow si qurux badan ayuu kubaddaas ugu qaatay bilo bashiir colaad difaacii hore ee kooxda dekada ah kaasoo jaha kale loo diray kubaddii lugta bidixee laki waxayeed kubad uusan hawaysan karin goolhaya haways atam waxayeed kubad atama si kastaba garsoorku seeriga ayuu ka dhawaajiyey waxaase kulanka lagu macsalaameynayey kulanka lagu maamuusayey kulanka lagu sagootinayey tababare axmed gidaamo adkaatay kooxda kubadda cagta ee raadsan 4 elman 2 afarta gool ee kooxda raasan 2 ka mid ah waxaa dhaliyey simba gool waxaa raacsada lakiyow halka goolka kale uu raacsada cabaas